raadkii shalay Kaamboni wixii ka dhacay Kaamboni tuuba maanta laga rabo Puntland ay ka dhacdo oo aan laga fakaraynin war dadka Puntland degan waa kuwii shalay dawladnimada dhisay dhaqan bay leeyihiin beec ma galaan kala tuur ma galayaan jimcaalaha la geenayo jimcaalaha la magacaabaya waa jimcaalihii raas Kaamboni muxuu kaga bedelay absolutely waxba kaga bedelay reer Puntland whatever la sameeyo ma aqbali doonaan kalmadooda ku oran doonaa in maanta xamad intii laga soo duulay la ciidan baan idin dhisay saaraya baan siinaya dagaal baa ka socday Daesh lagu hayay dawladda federaalka hal gorada rasaas inay u geysay iska daayay waxay diiday permissionka diyaaradii dhaawac lagu qaadi lahaa in la diro ogolaansho aviation ku siiyo waa kuwa dhaawac qaadi lahaa waxay u taraysaa waa maanta jimcaalo rasaas qaadiyo godow baan ka dejinaynaa xabadaan qaadayna they do for what lacagna way qaataa way ku waxaysan mise reer Puntland oo siyaasadii iyo odayaashii wixii la isku ogaa annaga waxay gaareen reer Jubaland askariga markii lala soo hadlo lacagta loo soo diray inuu lacagta account-ka dawladda ku soo celiyo codkiina uu soo diro maanta codadka aan hayay mas'uuliyiinta dawladda ay saraakiisha la soo hadleen hadaan media dhigno dawladnimadoo dhan baa laga tagay war reer Puntland inta miyay garan waayeen Puntland xeeral bay lahayd dhaqan bay lahayd waxaan leeyahay dhaqankiini dib ugu noqda oo odayaashu taladoodii iyo dadkan waxay ku maamuli jireen ha fiiriyeen oo dadkan xamar looga yeerayaa wax dan oo idin hayaan ma jirto shalay bay dagaalkeedii ku taageerayeen reer Puntland oo maanta ay ku socoto weerarkii Kaamboni 2 oo aan laga xishoonayn waxaan oran lahaa caqligiina ha taliyo annaga soo marnay ceel nin gale baa laga wareystaa